السلام الله عليكم وبركاته أغارت شرفت له ومركلة يبرنامجكي أن كجا هدليني مشروع إلى دجالنك نورك قيبتي كواد وحا أي نومريسي وحو نوشيغي إن دولك الصومالي دا يشام بأيهين لبا نور أوباهن إلا دميو قيبت اللباد وحي كوبلابانيسا سيدتان markaas ayaa cabsi dareemay waxaan jeclaystay in aanan halkaan imaan waxaase cod hoose igula hadlay ruux aanan garanaynin waxaana igu yiri adkayso aad xog badan heshide ruuxaas oo aan ogaaday inuu ka awood badan yahay kuwaan aan ku biiray Paul ayaa i dareemay in buuq igu furmay naftayda waxaana ii sheegay marka aan koro salaanta kala sareynta in cabsidu iga baabi'i doonto laakiin la iga baahan yahay nafurnimo lixaad leh wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo qof Soomaali ah kuwaasi oo ka dagaalama gudaha oo noqda gacanta qarsoon ee noo fulisa danahayna ama hawlahayna waqtigan waxaa nagu adkaatay in aan dibadda kala dagaalano waliba waxay isbedeli doonaan marka la gaadho December 22keeda 2016 waxaan jeclaystay in aan ogaado sababta xilligaas wax waliba ay isku bedelayaan waxaad moodaa in uu maqlay faqa gudaha naftayda waxa uu sheegay in xog badan oo aan loo sheegi jirin xubnaha dharka madow aan nasiib u yeeshay in la ii furo sirtan waxa la siin jiray oo kaliya qofkii gaara darajada 22aad cidii falshelisana xukun dil ah ayaa lagu fulin jiray ayuu yiri Paul wuxuu igu yiri hadda sixirkii aan dhulkaas kula dagaalami jirnay uu naga istaagay 2012 waxa kor u kacaya quwadda ruuxda aadamaha oo halis weyn ku ah qorshaha weyn ee aanu ka leenahay awoodda dunida December 22keeda 2016 marka la gaarana waxa cirka ka soo muuqan doona xidig cusub oo awood badan xidigaas markuu soo daahiro ma shaqayn doonaan qorshe kasta oo aanu ka leenahay dhulka Soomaalida dagaalkii hore ee noo qorsheysnay waynu fulin doonaa inta aan la gaarin 2016 dhulka Soomaalida waxaan qorsheynay in 5 maamul loo qaybiyo waxaan sidoo kale 1884 aan miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo cadow isku ah halkaas marka uu marinayo ayuu joojiyay hadalkii wuxuuna ii sheegay in xogta inta hadhay la isiin doono marka aan fuliyo howlgalka koowaad ee qorshihiisa gacanta la iga saaray qolkii madoobay ayuu iga soo saaray Paul wuxuuna i keenay qol dhiig ka soo urayo biyo ayuu madaxa igaga shubay wuxuuna igu yiri waa in aad u duushaa dhulkii Soomaalida waxaan markii koowaad u soo dhoofay dalkayga anigoo cadow ku ah dadkii aan ka dhashay haddaba qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeeynaa inta aan ka gaarino qaybta ku xigto waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo Baris Media waxa uu idin soo bandhigayaa waxbarashada siyaasadda sirdoonka iyo arrimaha bulshada haddaba ku xirnaa oo ha mogaanin Baris Media